markaa halkan qaybtan hore oo la yidhaahdo qaadanaa qaybtan hore aynu qaadanaa waxaynu halkan ku haysanaa tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 plus tan theta waa as a fraction oo kale ay u taallaa fraction si hoos yaalla weeyaan. Trigonometry solution baynu ku bilaabanaa tallaabada koowaad waxaynu ku bilaabanaa trigonometry solution. Halkan waxaynu ku haysanaa tan theta tanku wuxuu leekaa sin theta divided by cos theta. Halkaasi hooseeyo waa trigonometriga tanka waxaan ku bedelay sin theta divided by cos theta. calaamadan isu qaybinta ee meesha ku qoran ayaan qorayaa. halkan waa 1 ka waan qorayaa isna. cotku muxuu leeyahay isaguna cotku wuxuu ahaa saamiga u dhaxeeya coska oo loo qaybiyay sin. Saasaan ku dhammaystiray. haddana qaybta ku xigtaan bilaabayaa oo ah sareeyaheedu waxa weeyaan maxay cos theta divided by sin theta. waxaan u qaybinayaa 1 minus sin theta divided by cos theta. sin theta divided by cos theta xaqiiqan ka keenay waa tankaas oo aan ama tanku wuxuu leekaa sin divided by cos. intaasi waxay la sii mid tahay qaybta hore inoo soo qaad. xaggan waxaynu raadinaynaa markaa maxay LCM-ka ay hooseeyaan leeyahay. markaa taa toos baan usoo dejinayaa. waxa weeyaan sin theta divided by cos theta. calaamadana waxaan ka dhigayaa isu qaybin taa noocaasa si aan jaranjartan dheer aan u oobno. LCM-ka markaa halkan hooseeyo waa 1 kana waa sin. therefore calaamadda isu qaybinta saasa sameynaya. LCM-ku waa sin waayahay. LCM-ku maadaama sinku toos buu ugu dhacayaa ka 1 kana toos ku dhacayaa. marka waxay noqonaysaa maxay sin theta minus cos theta. waayahay kaas waa qaybta. waxaan qorayaa calaamadda balasta. halkan waxaynu ku haysanaa cos theta divided by sin theta. calaamadan waxaynu u bedelaynaa iyaduna tanna sidaas oo kale ayaan LCM-ka uga raadinaynaa. LCM-ka labadani waxay noqonayaa markaa isagana coskii kaasaan ku dhufanayaa. 1kana waxaan ku dhufanayaa maxay sinka. marka waxa weeyaan waa cos theta minus sin theta. algebraically ayaynu xisaabta kusii furfuraynaa. sameynayna markaasi maxay qaybtan hore haddaynu nimaano calaamadaasaynu bedelaynaa. calaamadan haddaynu bedelno markaynu bedelno calaamadan isu qaybinta ah markaynu bedelno aynu ka dhigano markaa isku dhufasho. qaybtan wax change kuma dhacayo iyadoo waynu qoranaa toos baynu qoranaa. waa cos theta divided by sin theta. tan ayaa markaa isbedel ku dhacaya sidaynu ognahay arday. haddaynu calaamadda isu qaybinta charge galeyno multiplication charge ka dhaca waxa weeyaan sareeyahana wuxuu noqonayaa hooseeyahana sareeye. markaa waxay noqonaysaa sin theta divided by sareeyihii oo markaan hooseeyo ka dhigay oo sin divided by cos. intaa waxaan markaa haddana u geynayaa sidaas tanna ku sameynayaa. tan toos baan u qorayaa. haddana waa cos theta divided by sin theta. calaamadan isu qaybinta ayaan u bedelayaa isku
dhufasho haddaan u bedelay change baa dhacaya, kana sarreeyuu noqonayaa, kana hooseeye. markaa coskii wuxuu noqday sarreeye, intaas kalena cos minus sinkiina wuxuu noqday hooseeye. allahuma salli calaa maxamed. waxa aan sameynaya markaa hadday tani isku dhufashadaan sameynaya waxa weeyaan markaa isku dhufashada aan sameynaya waxa weeyaan Afghanistan bay ahayd maadaama kan aan saankiisii ku qoro halkan waa sin theta. waayahay kana wuxuu noqonayaa markaa cos. halkan isweydaar baynu sameynay, waynu saxnaa khaladkaasi ilduufka ah. saankan ku dhufo markaa waa sin square. waayahay coskanna coskaynu ku dhufanaynaa, coskanna waxaynu ku dhufanaynaa markaa intan isagana waa sin theta minus cos theta. waayahay intan sidaas si lamida iyadana ku sameynaynaa waa cos theta divided by sin theta. cos theta isku dhufana waa cos square. intanna markaasi intan unbay ku dhacaysaa iyaduna bracket baan furayaa, waa cos theta minus sin theta. waxaanu ku haynaa halkan waxaanu ku haysanaa halkan waxaa inoo yaalaa sin theta minus cos theta. halkanna waxaa inoo yaalaa iyadana sin theta minus cos theta. waxaan doonaynaa inaan iswaafajino, waayo halkan sin waa positive, halkan waa negative. therefore maxaynu sameynaynaa xisaabta intanna waxaan ku dhufanayaa maxay -1. intanna waxaan ku dhufanaya iyadana seeyahana -1. therefore dhacaya waa maxay? hagan haddaan -1 ku dhufto tana noqonaysa plus, kana minus buu noqonayaa. haganna haddaan -1 ku dhufto tana ayuun baa noqonaysa markaa maxay markaa haddaynu soo dejino qorno waa sin squared divided by cos theta bracket waa sin theta minus cos theta. bracketkii aan kusoo xidhno minus baa halkaasi ay isku bedeshay. xagga sare waxaa inoo yaalaa cos theta squared oo loo qaybiyey. halkan waxaa yaala sin, bracket baan furayaa. xaggan isbedelka dhawaxay sinkiina plus buu noqday, coskiina waxa weeye halkan markaa waxaa inoo olayaa sin theta minus cos theta. bracketkii baan soo xidhayaa. algebrically baynu usii xalin. common factorka ka bixi kara xisaabtani waxa weeyaan waa iska arkanaa waa labadan, maadaama aynu intaas oo waxaanu ka saaran 1 divided by sin theta minus cos theta oo bracket baynu markaa haddana furanaa.
marka intan haddaan ka saaro 1 sin theta minus cos theta waxay soo harayaan labadan oo markaa ah sin theta squared divided by cos theta minus intan haddaan ka saaro sin theta minus cos theta waxay soo harayaan iyadana labadan waxa weeyaan waa cos theta squared divided by sin theta. Okay, tabka ku xiga markaasi wadana kan waxay noogu soo haray dhexda inoo taalo waxay noo soo haray xisaab markaasi fraction oo coskuna halkan hooseeyo halkan sin ba hooseeyo. LCM ku muxuu noqonayaa LCM ka ay wadaagayaan wuxuu noqonayaa waxa weeye wuxuu noqonayaa coskii iyo sin-kii oo la isku dhuftay buu noqonayaa. waayahay inta daliisho dashi waa 1 divided by waa 1 divided by sin theta cos theta waa 1 divided by coska ka jaray sorry gaarigo mar haddaan mees ka dhignay waxay noqotay intaa waxaan furayaa bracketkeennii waxa weeye LCM-ka labadan ay wadaagaan wuxuu noqday cos theta sin theta markaas sidaa maadaama saa noqdo kala duwan kaasina isku dhacayaa kaasina sidaas weydaarkaaba iskugu dhacayaan labadana oo isku dhacayaan sin haddaan ku dhufano waa sin cubic cos haddaan ku dhufanana waa cos cubic xisaabta waxa weeyaan halkan cubic baa yimid cubican sin cubic iyo cos cubic waxa weeyaan waa farqa 3 jibaar baa la yidhaha farqa jibaar sida loo furfuri jiray waxaa loo dayay tusaale ahaan markaad haysato a cubic minus b cubic aad ka factor garaynayso a minus b jawaabtu waxay ahaan jirtay a square plus b square plus ab ayay noo soo bixi jiray marka intaa laga saaro instead of aad u taalo waxaad ku bedelaysaa sin meesha ay b du taalana waxaad ku dhufanaysaa tan soo deji markaa waa 1 divided by sin theta minus cos theta waxaan marinay sin theta minus cos theta waxaan furayaa bracketka markaan furo intan ayaan factorize garaynayaa si aan u kala factorize gareeyay way u kala baxaysaa markaa sin theta minus cos theta markaan ka saaro intaa waxay noqotay eedana waxay igu taagan tahay sin waxay noqonaysaa sin squared plus maxay cos squared iyo coskii iyo sin-kii loogu dhuftay waa cos theta sin theta bracketkan soo xidhayaa waxaa hooseeya intaasoo dhan waa markaa maxay cos theta sin theta markayo sababta ay banaan markaa inaan la kansaleeyo wixii la halkan waxaa ii yaalaa cos theta minus sin theta minus cos theta waayo arday maran aan gubno intii hore isku soo jarjarnay markaynu halkan joognay inoogu dambeysay labadaa isku jarnay waxay noo soo haray sin square cos square loo geeyey iyo cosine oo loo qaybiyey
no cos square and sin square waa cos square and sin square cos squared plus sin squared waxay noo leekan jirtay 1 halkaas aynu ku bedelanaa markaa intaan arkano ayaa waxaynu ku bedelanaa maxay 1 baynu ku bedelanaa markaa maxay noo leekanaysaa waxay noo soo baxayaa 1 loo geeyey cos theta sin theta loo qaybiyey markaa cos theta sin theta haddaynu sii furfurno markaasi hooseeyahani waa uu ka dhexeeyaa 1kan labadan sarreeya waxaa ka dhexeeya hooseeyahan markaasi ayaynu kala raacinaynaa waxaa noqonaysaa 1 divided by cos theta oo lagu soo dhuftay 1 divided by sin theta oo loo geeyey cos theta loo geeyey cos theta iyo sin theta oo intana waxaa loo sii qaybinayaa cos theta sin theta therefore labadani halkaa 1 by waxaanu meesha ku haysanaa 1 divided by cos theta oo lagu dhuftay 1 divided by sin theta oo loo geeyey kanoo markaa 1 noqotay therefore solution bayna daba sameynaynaa trigonometrically haddaynu xalino kaa inoo soo horreysay muxuu leekaanayaa waxa 1 divided by sin wuxuu leekaan jiray cos theta therefore 1 divided by cosna wuxuu leekaan jiray sec theta waa rogaalkii coska halkana waxaa inoo yaalaa 1 intaynu halkana kaga daranaa therefore solutionkeeni saasaynu ku helnay approved baynu ku sameynay wixii laynaga rabay inaynu leekeysiino waxay ahayd intaasay ahayd intaan markaan isla eegno haddaba way isla yihiin waxaan isku daynaa ardayga dadaalka sii ballaarinaa maadooyinka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.